soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan ka hadlayaa mowduuc muhiim ah. Mowduucaas waa mowduuc inta badan feejignaanta jirku inuu noqdo mid feejigan, cudurada ka feejigan, mid aan dansaneyn, mid firfircoon, mid soo jeeda mar walba. Maxaa siyaadiya feejignaanta jirka ama dareenka ku aadan jirka iyo deegaanka ku xiranba waxa ay siyaadiyaan arrimo badan ama waxaa siyaadiya waxyaabo badan, kuwaas oo isugu jira kuwa dabiici ah, kuwa aan dabiici ahayn. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee saameeya ama siyaadiya feejignaanta jirka waxaa ka mid ah: 1. Jimicsiga. Jimicsi joogto ah qofku inuu sameeyo waxay kordhisaa wareegga dhiigga. Marka wareegga dhiiggu siyaadana, waxaa siyaadaya oksijiinta gaaraysa maskaxda. Marka oksijiinta maskaxda gaaraysa ay siyaadana, waxaa siyaadaya feejignaanta jirku wuxuu noqonayaa mid mar walba firfircoon, soo jeeda. Haddii oksijiinta maskaxdaada gaaraysa ay yar tahay, haddii wareegga dhiiggaagu uusan sidii la rabo u shaqaynaynin, jirkaagu wuxuu luminayaa feejignaanta. Jirkaagu wuxuu noqonayaa mid aan firfircooneyn, mid iska dansan. 2. Hurdo kugu filan ama tayo leh. Hurdo tayo leh oo kugu filan waxay muhiim u tahay dib u soo kabashada iyo dib u cusboonaysiinta nidaamka jirka iyo maskaxda. Inta badan qofku markuu hurdo ku filan haysto, maskaxdiisa dib ayay u cusboonaanaysaa, jirkiisu dib ayuu u cusboonaanayaa. Balse haddii aadan haysan hurdo kugu filan, jirkaagu wuxuu luminayaa firfircoonida, wuxuu luminayaa cusboonaysiintii jirka, maskaxda iyo nidaamkii soo kabashada. Tanina waxay keentaa in carqalad ay ku timaado firfircoonida iyo feejignaanta jirka. Cunto dheellitiran. Cuntooyinka hodanka ku ah macdanta sida omega 3 fatty acid waxay jirka ka caawiyaan inuu noqdo mid feejigan. Sidoo kale waxay siyaadiyaan maskaxda waxqabadkeeda. Haddii markaad cunto cuntooyinka omega 3 fatty acid cuntooyinka ay ku badan tahay, jirkaagu wuxuu noqonayaa mid firfircoon, soo jeeda oo aan dansaneyn. Cuntooyinkaasi waxaa ugu horeeya malaayga. Malaay kastana ma aha, waa malaayga nooca baruurta ah. Malaayga nooca cadiinta ah ayaa inta badan laga helaa omega 3 fatty acid. Biyo kugu filan. Biyaha oo aad cabto, jirku wuxuu ku shaqaynayaa si dhammaystiran. Biyo cabista, gaar ahaan qofku inuu cabo ugu yaraan 2 litir maalintii, waxay jirka ka dhigtaa mid feejigan oo diiradda saara wax kasta. Waxay jirka ka dhigtaa mid firfircoon. Sidoo kale, yareynta stresska wuxuu hoos u dhigaa feejignaanta. Sidaa darteed, waxqabadyada ama waxyaabaha keena stresska inaad yareyso aad ay u fiican tahay. Fikirka qotada dheer inaad yareysana way fiican tahay. Xirfadahaaga inaad ka dhigto kuwa miisaamanna way fiican tahay. Stresska inta badan waxaa keena fikirka badan. Inkastoo noloshu mar walba ay stress leedahay, haddana waa inaad ku dadaasho wax kasta oo stress kugu keeni kara ama walwal ama walaac, sababtoo ah waxyaabaha stresska keena waxay hoos u dhigaan feejignaanta, firfircoonida jirka, waxayna kor u qaadaan inaad noqoto qof iska dansan, aan waxba qabsan. Ka fogow isticmaalka maandooriyaha. Maandooriyaha waa mid ka mid ah waxyaabaha jirka ka dhiga mid dansan, mid aan firfircooneyn, mid aan soo jeedin. Waxaana dadka maandooriyaha isticmaala ay lumiyaan feejignaanta jirka. Nasashada iyo firaaqada. Waqtiyada nasashada iyo firaaqada inaad si fiican u maamusho. Inta badan dadka dhibaatada haysta waxay tahay waqtiyada nasashada ama firaaqada si fiican uma maamulaan waqtiga. Waxay tanina keeni kartaa in qofku stress la kulmo, in feejignaanta jirkiisa ay lunto, in qofku noqdo mid dansan, maadaama jirka iyo maskaxda ay siinayaan fursad aysan dib ugu soo kaban. Marka nasashadaada iyo firaaqadaada uga faa'iidayso si qurux badan, si maskaxdaadu u noqoto mid dib u soo kabata, jirkaaguna u noqdo mid feejigan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka. Like saar muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro.